السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما توحى ربنا كله وذا أقول تلا يرى إيو شيكو تلا دم عاونيسا وعلى حاجة دم كان شيء دورة. قف كدن يرى أما بني آدم كودن ولي بمركا إدن يرى دي ينسيو بدن تحي وحويان وحنا صومر نرشة فرصة فرا بدن أو حاجة قبل كنا نرشنا لكن وين ضيع سنة وين ضيعنا فرصة هاس يدو أينو لين إنه إن أنا فائدة ولا حين. فرصاس waxaa kamida waxbarashada la ka caawinayay waxaa kamida shaqooyin aan helno waxaa kamida sidana loo barbaarinayay iyo tarbiyadeena intaba hadii aad maanta garan weydid waxaad garanaysaa maalin aad baahi u qabtid badana inta qof inta tababar ay qaateen dhayarsaday maalinkii ay isla fiilkii ay wax ku tababaran lahaayeen fursad shaqo ku helay u baahday cilmigii barigaas waxaan tusaale idin loo wadaagayaa sheeko yar ku saabsan nolol yacni qisahada ka hor anigu aan goobjoog u ahaa barigaan dhiganayna dugsiga sare ayaa waxaa jirtay gabadh dhalinyaro ah oo kamid ah ardadii waxna la dhiganaysay gabadhaasi ma ahayn dadka waxbarashada u furfuran oo u diran inay marks fiican keento inay ama assignment ka shaqeyso macna uma sameeyeen kaliya waxa qiimaha u lahaa waxay ahayd labiskeedii say u soo u imaanaysa meesha dabeedna maalin walba kamid iska jeclaysan inaan la taliyo waan u tagay waxaan ku walaalo taraan ku siinayay waxbarashada maad ku dadaashid oo mustaqbalkaaga dhisaysaa saysa dabeedna erey waxay ugu jawaabtay aanan weligii ilaawin oo ah mahad aniga ninkii mustaqbalkayga yani noloshayda kafaalo qaadi lahaa maanta liidaa marka uma baahni ana inaan fakaro oo aan walwalo oo aan liido meeshana waalidka unbaa ku qanciyaaye uma baahni waxbarashada marka gabadhaas ilaahay wuxuu qadaray muddo sanada ah kadib inaan isla gabadhii lafteedii ku arko iyadoo suuqa fadhida meel yaroo weliba dukaan ahayn laakiin dadkan waratada ah ee banaanka fariista jawaan yara oo horteeda yaala daas carbuur ku fadhiday waxa uu yaala xabuub iyo tamaandho yara iyo basal yara iyo waxaas iibinaysa iyo qaj yaro in yaro malaha maalinka in la kasada ah ay iibinaysay waan wareystay maxaa ku dhacay waxay ii sheegtay inay laba nin guursatay mid kamid uu ka dhintay afar caruur ay haysataa dabeedna waxay ku khasbanaatay inay caruurteedii koriso oo ay noloshaas samayso haddii ay xirfad yeelan lahayd ama ay nolosheeda dhisi lahayd gabadhaasi iyada iyo awlaadeeda iyo nolosheeda waxbay tari lahayd sidaas daraadeed waxaan rabaa inaan kugu ilaahdo noloshaada ha u xiran cid aadan garanayn ama wiil ahaw ama gabar ahaw noloshaada adiga ayaa gacanta ku haya maanta xirfad baro wax baro fursadda aad maanta haysatidna ka faa'iideyso laakiin haddii aad ka fikirtid cid baa biri wax ku tari doonta lama hubo inay ciddaas sidaas noqon doonto marka waxaa wanaagsan inaad noloshaada adigu ku filnaatid oo aad wax qabsatid oo aad wax noqotid wax u ahaw si aad wax u noqotid adiguna noloshaada wax ku noqoto laakiin dad noloshaada yeesan mas'uul kaaga noqon mahadsanid